dhageystayaal ku soo dhawaada channelka Hanfada Sports waa qaybtii labaad ee barnaamijkeena imtixaanaha ahaa ee aan diiradda ku saaraynay fashilka sportiga Puntland iyo fashilkii ku dhacay xulka Puntland ee koobka maamulada dalka ay ka soo hareen. barnaamijka waa dood ku saabsan arrimahaas sportiga Puntland oo dhan iyo ciddii mas'uulka ka ahayd. waxaa sidoo kale jira qayb saddexaad iyo qaybo kale iyo waraysiyo kale ee mas'uuliyiin kale aynu la yeelan doono. barnaamijkana wuxuu noqon doonaa taxana joogta oo isbuucii dhowr jeer aad dhageysataan ilaa iyo inta fashilka sportiga Puntland cidda mas'uulka ka ahayd. degmooyinkana waxaa laga xulanayay dadka ugu macquulsan ee loo babacdhigi karo maamul goboleedyada soo socda. sidaas la ajligeed waxaa halkaas kaamirooyin lala fadhiyay, macallimiintuna meesha wada fadhiyeen, kala xulanayeen qof kasta oo meeshaas bacdara ka dhigi kara. kadib waxay ku guuleysteen in ay la baxaan inta ugu muhiimsaneed 18 gobol iyo inta ka badan 18 degmo iyo inta ka badan oo baleeyara ah in urursadaan. taas waxa way khiyaano loogu talagalay in lagu hagardaameeyo kubadda cagta ee Puntland maadaama laba jeer marna ay qaaday marna ay finaalo timid. qaabka kaliya oo looga adkaan karay wuxuu ahaa in laga soo tashado loona soo doorgaroobo. waxaa soo hartay Puntland iyo dadka hoggaanka u ah hadday noqon lahaayeen xiriirka kubadda cagta iyo hadday noqon lahaayeen waaxda sportiga. labadaba waa loo qariyay, loomana sheegin in la diyaargaroobayo. diyaargarowgaas markuu gabagaboobay ayaa gudoomiyihii xiriirka kubadda cagta Soomaaliya uu soo duulay, wuxuu yimid Puntland, wuxuu ka soo diyaargaroway, wuxuuna ka dhaadhiciyay dad isaga uu ku duulo, wuxuu ka dhaadhiciyay inay ka qayb galaan, wuxuuna ku qanciyay inay halkaas yimaadaan oo ay ka qayb galaan. dood baa ka dhacday, ma aanu diyaargaroobin. mashaakil ma lahan buu ku yiri Puntland dad adag baa tihiin, waana iska dhicin kartaan marka imaada. isqaab qabsi baa yimid macna diyaar ma nihin, waqti waa lagu kooban yahay. laakiin haddii duruucda loo noqdo waxaa weeye in laga qayb galo, budgetka halkaa ka soo baxa haddii Puntland laga helo iyo haddii Banaadir laga helo iyo haddii xiriirka Soomaaliya laga helaba in ruugmo maalin aan laga soo helo ayaa hoggaanku ku iibsadeen hanaankii iyo dhalinyaradii sumcadoodii iyo magacii Puntland oo dhan maalin xurquun ah oo intay diyaaradda raacaan meesha tagaan soo ciyaaraan hotel ay degaan soo noqdaan wixii jeebka u soo geli karna ay soo helaan. intaas ayaa lagu iibsaday dhammaan sumcaddii iyo masiirkii iyo aayihii dhalinyaradii sportiga Puntland. caqabadahaas waxay ahaayeen caqabadaha kaliya oo Puntland ay ku hartay oo khiyaanadaasna aan markii hore soo carbaabay inay ka yimid xiriirka kubadda cagta Soomaaliya. midda labaad waxay ahayd macalinka oo la magacaabay. anu ma qabo in macalin la magacaabo, waa fikirkeyga. mana ka xumi ama saaxiibka Ibrahim Khadar macalin Ibrahim waana saaxiibana ahay weeye. marka laakiin qaabka loogu magacaabay wuxuu ilaaha si khaldan. sababtoo ah macallimiintu way tiro badan yihiin, waxay joogaan gobolada, waxay joogaan Puntland hareerahooda oo dhan bay joogaan. in dhammaan la isugu yeero, inta macallin joogta oo dhan in la isugu yeero, lagu martiqaado Garowe, la yiraahdo waxaa tiin 50 macallin. waxaan iska xulanaynaa macallinka na hogaaminaya ayaan iska xulanaynaa, aanu iska codeyno. intaas waqti in la siiyo, halkaasna lagala soo dhaxbaxo macallin la isku wada raacsan yahay oo ka bixi kara xilligaas adag, loona sameeyo macallinkii labaad iyo kii saddexaad iyo kii afraad. sababtoo ah halka waxa lagu martiqaaday in ka badan 50 macallin oo wada khabiir ah, iyadoo meeshaas la isugu qanacsan yahay, macallin walbana uu ku qanacsan yahay macallinkaas soo baxay oo isagu wax ka doortay. waxay noqon lahayd garbo uu ku duulo ku faano. meesha imaan lahaa kunta ka macallin in ay soo bandhigaan oo ay yiraahdaan baleeyarada dalka jooga, hadduu Sanaag joogo, hadduu Sool joogo, hadduu Mudug joogo, hadduu Nugaal joogo, hadduu Bari joogo iyo hadduu Karkaar joogaba, in haddana hal mar laga wada shiro, laga wada fariisto, la soo gudbiyo ilaa in ka badan 150 baleeyar. 150 ka baleeyar had
midba laga sii xulo ilaa marka dambena lagala soo baxo 22 aan kala dhicin waxa marka dhacday iyadoo aan taas la sameyn in waqti kooban lagu magacaabo macallinkii kadib markii macallinka la magacaabay lama siin jaaniskii uu ku xulan lahaa marka waxay macallimiinta dhammaantoodna halkaas ay ugu hambaliyayaan marka waxa weeye problemka jira wuxuu yahay macallinkii lama siinin waqti uu ku soo xusho ama uu macnaha ku diyaar garoobo lama siin ee waqti kooban ayaa la magacaabay dhibaatada kale oo sii jirtana waxay ahayd in 22 magac loola yimid oo la yiri 22 kan ayaa la soo ururiyay ama uu ka warhayaba isaga dhanba 3 ama 4 bilayar inuu ka warhayaba inta ka soo uusan aqoon meel ka yimaadeen iyo ciyaartooda waxa ay tahay midna taasna waxay ahayd iyadana dhibaato kale oo macallinkii laftarkiisii haysatay maadaama loo keenay oo la yiri liiskan baa wadnaa iyada ku shaqeynaysaa macallinku wuxuu awoodi waayay inuu yiraahdo hadii aniga waa magacoodeen liiskanna way ii dhiibteen marka liiskani dadkaani ciyaartooda ma aan arkin ma daawan marka sidee baan garoon ku gelin karaa taana way ka hoos baxday caqabad kale oo isaga sii haysatayna waxay ahayd isagoo oo degdeg loo magacaabay isagoo oo 22 bilayar liis ku qoran loo dhiibay haddana aan loo madax banaynin sidoo uu u kala xulan lahaa leen afkiisa iyo binjigiisa iyo qofka macnaha uu bedelan lahaa iyo qofku keedka ka dhigan lahaa midna loo madaxbanin nin walba 3 nin buu garbaha hayaa wuxuu leeyahay 3 ilaa waa inay galaan midna wuxuu hayaa 2 garbaha hayaa wuxuu leeyahay 2 waa inay galaan marka halka waxa ka imaanaysa qofkii ma garanayo maanta wixii la ciyaaray ma garanayo biri wuxuu ciyaar doonana ma garanayo sababtoo ah qadankii iyo kursigii iyo kubadiiba wala la haystaa marka taas waxay keentay in macallinkiina foos wareero meel laga jirana uu garan waayo kadibna حتى هذه سؤال لو يدينا لو أرنا عيارة محمد عشان معنا قرن وين لها وإحنا كيني دباتوين عقباتها يعولس كثارن بكينية مركا نسكوا بنا أصو أوريو وحوي خيانة اللي تمت قبل كبنادر وأذيجياشي لغشوا بي لقينا دعيي إن أي ماركتي أي كوكاس كقريب كلام يجوا أنكشف إنه كانت جار جروبين يو كدق دقيستي معلنك oo lagu degdegay si kooban oo si dhaqsiyaan loo magacaabay iyo liiskii oo la wado oo la keenay iyo liiskii oo aan loo fasaxin oo laftirkeedii oo aan loo fasaxin oo loo madaxbanaanin intaas oo caqabado markay soo gorsada waxay keentay aan waxaan ka baqayay waliba in ay jiroonigu koowaad ku haraan laakiin marba haday jirooniga tay ka soo baxeen laba baraaji ku soo baxeen oo wali aysan badan haynin waxaan leeyahay way dadaaleen laakiin caqabadaha hadda isku soo ururiyo inta aan soo sheegay baa keenaysa inay isla markiiba kufaan bilayarada Puntland waana dhanka waxay kaga timid maamulka iyo cidii hoggaanka ku haysay ay kaga timid baahan bilayaradu waxeeda ay ku leeyihiin habeerada waa ma santahay gudoomiye hore ee xiriirka kubadda cagta Puntland Cabdulaale sida quruxda badan oo aad u faafahisay iyo khibrada dheeriga ah ee aad leedahay aad baan kaga mahad celinaynaa su'aal kale ayaan rabaa inaan dhex dhigo waxaan jeclaan lahaa idinkoo koobaya maadaama barnaamijku uu kooban yahay waqti inuu nagu dheeraan waxaad tiraahdaa xiriirka kubadda cagta Puntland iyo wasaaraddu haddii ay macallin magacaabeen yay tahay cidda xulaysa xulka oo khaladka aad ku eedeynaysan wasaaradda iyo xiriirka shakhsiyan oo aad leedihiin macallinkii bay farigelin ku haysaa xulkii bay 22 u soo qortay dhammaantiin waxaad ka siman tihiin in macallinka farigelin lagu sameeyay waxaan ku bilaabayaa macallin Idris yay tahay cidda aad ku eedeynaysan wasaarad ahaan iyo ka xiriir ahaanba aad baa u mahadsan tahay waa su'aal muhiim ah niyahow anigu waxaan qabaa shaqada waa la kala leeyahay oo qof walba waxa fiican shaqada meeshii maaragtay loogu talagalay in uu ka abaaro oo dadku u qaybsan tahay shaqadu macallinku sideedaba waa shakhsiga
loo baahan yahay mar walba in xorriyadiisa loo ballaariyo marka horeba laga taxadaro in macalinka la siiyo wax walba oo kalsooni ah si uu u keeno wax tayo leh kubadda cagta waynu soo ciyaarnay waynu daawanaa waa hobbigeena aad baynu wada jecelnahay waxaan garan karnaa macalinka ahmiyadda uu u leeyahay koox marka la samaynayo macalinku xor in laga dhigo wax badan bay ay sahashaa waxaana kow ka ah in wax wanaagsan laga dhaxlo xulashadiisa haddii ay u hagaagto sida loogu talagalayna loo soo xulo innagu waxaan ognahay macalinku inuusan macalinka hadda loo magacaabay xulka Puntland haba yaraatee ciyaartooyda qaybtood xataa in aysan is-aqoon isaga xataa in aysan wax aqoon ka dhaxayn hebel iyo hebel oo loo keenay iyada oo gacanta la hayo waxaan ognahay in ciyaartooyda qaar ay keeneen xildhibaano waxaan ognahay in ciyaartooyda qaar ay keeneen wasiiro ay isku hayb yihiin waxaan ognahay in Idris halka aan ka qabto wasaaraduna waa ballaaran tahay mas'uuliyiin badan weeye xiriirkuna waa ballaaran yahay gudoomiye ku xigeen iyo waxay leeyahay yay tahay cidda shaqadaas leh ee faragelintaas aad ku yeedeynaysi naasashaas ku qabtaan jeclaan lahaa faragelinta ugu ballaaran waxa iskale wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland waxa iskale khaladkaas oo eedda ugu weyn dhabarka u ridanaya baan qabaa anigu inay tahay ninka la yiraahdo agaasimaha xiriirka shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha agaasima Tigana waxaan siinayaa macallin Cunaye isla su'aashii baan weydiinayaa yay tahay cidda eedda iskale in maanta xulkii uu ka soo haro koobkii maamulada dalka Soomaaliya oo aad dhammaantiin eedeynaysaan waxaan jeclaan lahaa inaad shacabka Puntland u farfiiqdaan oo aad tiraahdaan wasaaradda qofka taytanka noocaas ka haya ama xiriirka Puntland qofka taytanka noocaas oo ka haya adoo soo koobaya si loo wada ogaado meesha sartu ka qorunsan tahay bismillaahir marka aad baa u mahadsan tahay macallimiinta saaxiibada iyo odayaalaana way mahadsan iyo warta waxani waa iska jaranjaro waxay soo gaadhay meeshii ugu dambeysay oo uu shaqada ka anbaqaadi lahaa macallinku waxaanu ka hadlaynaa waa faragelinta marka anigu ama Puntland oo dhan sida ay qabto faragelinta ugu weyn sida aynu Idris sheegay horta waxa la ninka la yiraahdo Tigana kubadda cagta Puntland in ay haykalkeedu lumo oo qof walba shaqada meel kaga boodo oo habarta meel ka qabso ay noqotona maalintu dalka yimid bilaabatay 2014 bilaabatay nimanka jooga xiriirka ninka la yiraahdo Mustafa Majacase iyo ninka la yiraahdo Hiro iyo ninka la yiraahdo July iyo uma kala haraanin inta xiriirka joogta uma kala haraanin inay farageliyaan macallinka aniga macallin baan ahay waan isla hadalay waan iswaxnay dadka ay u dareynayeen inay xilka u dhiibaan bay ahayd laakiin waxa ay ii sheegeen in aan ahayn qof iyaga waxay u leeyihiin waan inaan cidna maqlayn maxay tahay waxaan maqlayaan nimanku muwaalayn iyaga waxay leeyihiin inay waan inaan cidna maqlayn oo waxa weeye waan inaan cidna wax ka dhageysanayn marka taas waxay cadeynaysaa inay doonayaan in iyagu qof ay wixii u sheegaaneen wixii u sheegeen uu fuliyo sheekadooduna sanadka waagi hore way soo dhaaftay waxaan ognahay sanadka in hataa la kamid noqonshaha xulku ay dhaqaale ku qaadanayeen ciyaartooyga qaar lacag laga qaatay oo aan cadeymihii hayno ciyaartooyga qaar lacag laga qaatay waxaan kusoo koobaya Tigana waa qaybta ugu badan leh laakiin xiriirkuna gidigood waa macallimiin all of them waa macallimiin waga baxay okay macallin Cabdulqaadir Maxamed ayaan siinayaa kooxda horseed garowe macallin yaa si shakhsiyan ah ugu eedeynaysa faragelinta xulka soo xulidiisa iyo faragelinta ama marin habaabinta macallinka xulka loo magacaabay haddaan su-aasha usoo noqdo horta meeshaan anigu wax badan baan horta cunayay iyagu de waxbay maqleen laakiin wax badan baan kaga dhawaahayo meeshii baan joogaa xaruntii baan joogaa macallin horta sideeda xul waxaa magacaaba ama la rabaa inuu xusho
waa macalinka sidiisa macalinka markuu xushane uu ciyaarkooyda u qalanta inuu mataqaana ku duulo uu soo qorto uu liiskiisa la yimaadan waxa la rabaa inuu u gudbiyo xiriirka kubadda cagta waa sidaan ku dhaqaano caalam marka aduu macalinka sida doona marka hore lagu keeno sifadii doona lagu keeno waxay cadeeyeen ama meel walba ka sheegeen ama media galiyeen inuu macalinku ciyaartooyda xushay muhiimaddan waxa weeye qofka bini'aadanka ninkan horta wax badan diin imaadi buu yaqaan waa nin wadaada qeyr Allah siiyo Ibrahim fani saaxiibkaya Baleer asagoo Baleer baan dhowr mar iska horreynimo asagoo macallin oo saaxiibana waan nahay qofka bini'aadankana ilaa xad in lagu sii safaado wax in la saxo way dhalay in wax la saxo laakiin in waxaan jirin la sheegana waa laga qurux badan yahay waxaan maqlayaa in lacag la qaatay in wasiiro qayb keeneen in xildhibaan qayb keeneen waxa kama jiraan dadka qaybtood waxa xulaan qaybtood wax ma taqaanaa macalinka hawlo yimaadaan laakiin heer wasiiro iyo xildhibaano iyo ma taqaanaa intay u yimaadaan wax yeeriyaan heerkaas anigu garowaan joogaa gudbaa isugaaya maalinta qiyaamo ilaahay baa ila xisaabtamaya waxaan jirin inaan sheego ma doonayo waxaan rabaa wax xaqiiqo ah garbaheena malaa'ig baa saaran caawada aan markaas saxana laga yaabaa in nafta naga haado wax xaqiiqo in laga hadlaa wanaagsan sideedaba waxna lagu sixi karo dhaliisha waxa iskale number 1 waxa iskale macalinka iyo qolada la joogta meesha xiriirka kubadda cagta ama wasaaradda ha ahaato macalinka anigu waxaan hubaa inuu macalinka shiriyay xiriirka iyo wasaaradda inuu yiri shaqadan maadaama aad ii idmateen oo ii magacaawdeen igula xisaabtama laakiin teamkayga waa inaan u madax bannaanaadaa meesha ugu muhiimsan waxa weeye oo xulka uu ka liitay macalinka ma helin dadkii ku habboonaa inay la shaqeeyaan in meesha laga hadlaa wanaagsan macna cabqaad halkaaga waxa qodan ku soo laabanayo waxa tiri cidna kuma fareegalin haddana waxa tiri eeda waxa iska leh macalinka iyo xiriirka iska leh macna xiriirku eeda ay leeyihiin haddii isku fareegalin maxay tahay ku eedaysa anu mid baan ku sheegayaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Puntland Maxamed Ciiro waa ninkii 2 sano marna ku hogaamay marna finaalka iyo asagana magacaabay tababaraha Nicolas Ibrahim waxa la rabay ciyaartii koowaad markuu arkay uu yiri ii madax banee shaqadan uu u madax baneeyay ama xiriirku u madax baneeyeen ay arkay inay wax ka salfatay oo wax ka qurmeen ama macallinkii waa ay arkay inuu wax hogaamin waayay in loo yeero lala xisaabtamo qaladaadkiisii ma taqaana loo sheego meesha wax ka qaldameen la tuso ma garatay oo kadib ma taqaana la yiraahdo maadaama aadan haysan dad fiican oo kula shaqeeya in waxay ahayd la garab istaago oo garbihiisa la istaagay laakiin asaga hadalkan yiri tarabun waxaad ku eedaynaysaa inay la shaqeyn waayeen oo aysan faragelin miyaa anu waxaan ku eedaynayaa I believe anu ciyaartii hadda ay ku hareen tagaano inuu garoonka dhex taagnaa macalinka dhinaca taagnaa waa loo wada jeeday oo kaamirada qabtay laakiin inuu la hadlay ilaahay baa